waxaan filaynaa intaan samarku dhammaan magaalada Hargeysa inay hal company noqoto marka I can say that I'm representing some power now instead of only Jacob. waxaa kaloon ku dar lahaa also waxaan vice chairka associationka Somaliland waxaan soo dhaweynaa walaalaha iyaga ka yimi Muqdisho iyo Puntland waxaan leenahay dalkiinii baa timaadeen marti ma tihidin marka and we are very excited to see you in here marka soo dhawaadaan leenahay dhamaantiin. If I go back to the topic waxaa igu xiga Idris Abubakar Idris waa engineer 10 sanadood ku takhasusay engineering. He's the managing director and the founder of Solar Chain Technology oo ku taala Kenya iyo Soomaaliya labadaba. Idris waxaa kaloo uu leeyahay security company which delivers integrated security systems throughout Somalia. Idris in badan baan shirar badan oo kala ku kulannay not only inuu yahay is extremely active person runtii sectorkan aynu ku jirno wax weyn ku soo kordhiyay marka waxaan leenahay Idris soo dhawo Hargeysa. panel memberka ku xiga Mohamed Abdullahi Abdi Martello. Mohamed iguma qorra halkan marka I would rather let him explain himself since he's not. Assalamu alaikum. Magacaygu waa Mohamed Abdullahi Abdi Martello oo senior advisor shirkadda Beko Muqdisho ka dhisan iyo nawaaxigeeda. waxaa ku sii xiga Sidiiq wuxuu ka socdaa Beko isna waa Mohamed Sidiiq Sheikh waxa weeyaan tacliintiisa Bachelor of Science in Business buu haystaa and Economics from Stockholm University. Mohamed waxa weeyaan Public Relations Officerka Beko Muqdisho. isna sidoo kale shirar badan baan ka wada qayb galay runtii urur Soomaaliya waa inaan mar wada sameeyno kor u kicin oo energy-ga ahaa hopefully kiibaynu dhaska ka tumi doonaa intaan shirku dhamaan. Mohamed isna wuxuu ka hadli doonaa bal halkay u marayso renewable energy bay iyaga laftigooda xamar ka wadeen. It's really a shame in waqtigan ka horeysa inaan soo imano inaan isweydaarsan laakiin it's better be late than never marka waxaan leenahay Sidiiq welcome to Hargeysa. waxaa ku xiga Idris Xaamud. Idris waxa weeyaan gudoomiyaha shirkadda korontada ee Boorame. laba shirkadood baa ka jira Boorame. Idris waxa weeyaan aloog buu u yahay shirkadii kalena dialogue baa u socda iyaga laftigooda waxaan filaynaa waqti aan dheerayn inay hal shirkad ka dhigaan Boorame insha Allah taala. waxa kaloo uu yahay xogayaha guud ee ururkan aanu leenahay energy-ga. waxaa xaggaa ka sii xiga Maxamuud Axmed Liibaan. haddii aan tiriyo koofiyadiisa u malayn maayo inaan maanta oo dhan dhammayn karo marka waa gudoomiyaha ururkan aanu ku bahownay. waa gudoomiyaha magaca way naga xadeenay Hoon Heko oo the only utility in Burco runtiina wax badan aan ka baranay oo isku biiray. waa gudoomiyaha Ceergaabo CEO-ga Ceergaabo. Maxamuudna waxaan leeyahay kulli isaga ka intaasaan ku dhameeyay backgroundkii iyo memberskii waxaan geli doonaa hadda insha Allah taala discussionka maanta aan ka hadlayno waxa weeyaan English.
ما English مرة. Yeah. I may translation مير باي. If I can just take a couple of minutes, I want to welcome everyone who's in here on behalf of the largest utility company in Somaliland and Somalia, which Checo General Electric, which will be changed into Some Power by the end of the month. And hopefully we will not change the name again because we have changed too many names. There were mergers for the past 4 years from 27 small companies to 2, and now there's going to be 1. And hopefully Hargeisa Energy with public-private partnership and a couple of small utilities will join in. So I'm hoping that Some Power will just stay on. We want to welcome you into Hargeisa. We want to welcome you into Somaliland. Especially I want to welcome our brothers and sisters from the south, from Mogadishu and from Puntland. It's been long due that we come together and talk about the development of the energy sector in Somalia. Energy is vital to our people, and I think if we exchange our ideas and experiences, we can empower our own people. So we want to welcome you. There's a friend of mine who was talking about investment opportunities. We want to welcome you into Hargeisa. We are hoping for investment opportunities. By the same token, we have a lot of investments in here, which hopefully we will take it to the south. So, if we go back to the I want to apologize. I have been told that there are delegations from Djibouti and there are delegations from Ethiopia. It's I don't know, so we want to welcome you. I can basically say all the brothers and sisters who spoke Somali are in here, so I'm very excited about it and we want to welcome you into Hargeisa. The session is talking about learned lessons on the renewable energy projects in Somaliland and Somalia. If I start from Hargeisa, we are about to launch 4 megawatts of solar within the next few years. Hopefully the first 2 will be started this year and the second 2 will. We were doing a lot of feasibility studies. We visited a lot of European countries, and we have not yet decided which companies that we will go. The obstacles that we are facing in Hargeisa is we have a sun from basically 8 a.m. up to 6 p.m. And the majority of our customers need electricity at the night time. So that dilemma about the storage is one that we are facing, but we are not alone. I just come back from the US, and most of the American companies are really facing the same storage dilemma that we are facing. If we talk about the wind, you have seen the presentations. Hargeisa has one of the best winds in the whole region. We don't have the technology that can erect high wind turbines. So we have a lot of difficulties in terms of technology. The opportunities we have is we are just starting. We have not invested heavily on renewables, so at least all the mistakes that everyone in the region has made, we can experience from that and at least started on, hopefully, on, I'll give it to my colleague and hopefully he can talk about the experience that
My name is Abubakar Idrus. I'm the Managing Director of Solagen Technologies Limited. And I think I'll make a case for renewable energy as I go through and I walk you through a journey of my company. And Solagen Technologies Limited and primarily focus on solar-based solutions. We provide solar water pumping systems, street lighting, and we do off-grid at the same time. But we focus a lot on solar water pumping systems. The reason being is because of personal experience that I had. And I walked around the country, and most of the time, and I find a borehole that is not working, and the reason is the generator is broken down or there's no fuel. And every time you ask that question, why are you not using solar, the answer you get is, and it's expensive and nobody understands. And I think as much as somebody needs light, the first thing you need is something to drink and something to eat. And the fact that most of the people that we serve, especially in Somalia, are mostly nomadic and living in very harsh climate, where water is very precious. And we decided as a company, as much as we do all the other solutions, we'll focus a lot on water. Because if you have water, at least you have something to drink, you can do your irrigation, at least the cycle of poverty of, there's a famine, all animals die, and then NGOs come in, and all they do is restocking and distribute food, and then the cycle goes again. And so, somehow we have to figure out the problem is, the root problem is more often than not and has to do with water. So can we fix the water problem? And then we can start now solving all the other problems, whether it's light, electricity, and all. And I'll just show you some of the projects that we have done. And this one we did just outside Mogadishu at Afgoye. And I was lucky to visit outside Mogadishu. And what you find is one of the largest arable land that you can find in most parts of Africa. And some people just believe Afgoye alone and can actually feed the whole of Horn of Africa if it's well utilized. So what we did is we did a pilot project there. We went to one of the farmers, and when we proposed solar solution to the farmer, the question he asked was, are you sure you guys can even get water enough and to give us enough water for the house? And the answer was, you don't need to lose anything. All you need is just give us space, and then we do the project. If you like it, then you can start paying for it. So we did the project in 2013. And you can see the water there. I wish I could, I'll play some video and then I'll show you the generators that we retired after we did the solar. So basically, and if you look at the crop we are looking at is the banana, which was the main export before the fall of the government. And if we have to restart the economy in that country, then what we need to do is invest a lot in a crop that is well known, well received before. I hear in some Latin countries, what they used to do is label Somali banana to sell because it was the coffee of Kenya and Ethiopia, kind of in the international market. So a little bit of investment into that, and I think that country will be off the ground. Okay, this is also another project, but this one is for drinking water, and it's also a one we did for our community, which is now self-sustaining, because they charge little fee, and I think this borehole now is working for 2 years, and it's still up and running. You can see they have water for the animals, they have water for themselves. This is an off-grid we did for a market. That market I think now is fully powered, and I think they have refrigeration, they have basic need that can cover their power.
This is street lights. I think one of the amazing projects that have been done around Somalia is the street lighting. And somebody will tell you that the street lights that were done, I think by the Norwegian government and DFID, had a lot of effect on Somalia, especially on the streets. Mogadishu, for example, and I think the first one was done 2012, late 2012, early 2013. And those who have been to Mogadishu before the street lights and after the street lights, they can give you a testimony that really life has completely changed. I mean, you'll find people walking around the streets even at midnight. I had that experience myself, and those who have experienced, they are living testimony of that. So I hope more of that is done and done widely. I'll play for you. magacaygu Cabdirashiid Axmed Ibrahim waxaan ahay ninka iskala beertan aan joogno waxaan ahay macaamiisha micro dahab markii hore waxayna siiyeen deyn bayna siiyeen deyntii waan iska bixinay facekii labaad micro dahab waxay keentay solar system kan aan beerta ku waraabinayo markii hore waxaan isticmaali jiray laba machine mid hoosta ka soo qaadiyo mirko ka soo qaada petrol badan baa iga bixi jiray petrolkaasi bishii wuxuu noqon jiray ilaa $400 $350 $400 ilaa $300 inta u dhaxaysa ayuu noqon jiray intaana waxa dheeraa spare partkii mashiinada saliidii lagu shubayay la isticmaalayay kulli mashiinada kharash badan ayaa naga bixi jiray kharashkii badnaa naga bixi jiray waan ka raysanay alxamdulillah waad arkaysaan beerta hadda waa la waraabinaya waa la beerayaa solar system kuna si fiican ayay noogu waraabisaa beerta والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين run ahaantii anigoo ah mid kamid ah beeralayda Soomaaliyeed oo dadkii ugu horeeyay waliba isticmaalay solarka waxaan isticmaalay solarka muddo ku dhawaad sanad faa'iidadiisana aad iyo aad ayay u fara badan tahay xitaa ma aanan qiyaasaynin faa'iido intaan la eg in solarka laga heli karo sababtoo ah shidaalkii wuxuu ii baajiyay shidaal badan oo aan isticmaali jiray ayaa ii baaqday fallaahi alxamdulillah qoraxdana siiyay annaga wadamada kale oo qoraxda aan haysanin la mid manihin waxaan u baahanahay in qoraxdeena aan ka faa'iideysano sidaas daraadeed solarka waa ina xoog saarnaa gaar ahaan xiliyadan hadda jiilaalka kale naftada qaali waay lama gooyin karo marka waxaan u baahanahay in soolaradan oo kale aan sameysano si beeraheena tacabkooda ay u noqdaan tacab joogto ah oo dad wax soo saari kara aan naqano haddaan ka hadlo solarka xaqiiqatan tijaabadii wuu ka baxay waxaan dhihi karaa waa mid successful ah oo lagu guuleystay shaqadiisa nin kastoo beeraley ah oo awoodana waxaa ku recommend gareyn lahaa in solar kan camal iyo mid kasii horumarsanba in ay samaystaan maadaama uu wax badan ka caawinayo hadday ahaan lahayd dhaqaalo iyo hadday ahaan lahaydba dhinaca biraha iyo yani motooradan duqda la isticmaalayo ay ka maarmi lahaayeen بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Idris Xaamud Jibriil waxaan ka socdaa shirkadda Alog Electricity Company
oo bayskeegu yahay magaalada Boorama haddii aan shirkadda waqtigii la aasaasay waxoogaa dib ugu noqdo shirkadda waxaa la aasaasay 2004 waxaana loo aasaasay baahi ka jirta xagga korontada shirkadda waxa weeyaan muddo badan markaanu ka dhalinay dabka xagga dieselka waxaan muddo badan daraasaad iyo wax badan ku sameynay inaan u wareegno xagga renewable energy-ga muddo imika laga joogo 1 year and a half sanad iyo badh waxaanu daraasad badan ku sameynay arintaasi kadibna waxaan shirkaddu ay soo iibsatay wind energy oo marwaxadii dabka dhalinayay waxa shirkaddu maalgelisay hadda oo ay naga caawiyeen World Bank 900 kilowatt oo solar wind project 900 kilowatt way yeelaan hadda waxa kale oo imika ay shuraaka naga caawisay inaanu mataqaana project kale oo aan wadno hybrid system ah aan ugu talagalay oo ah solar oo 300 kilowatt oo isna processka ku jira waxa weeye waa mashaariicda shirkaddu ka hayso ah 1.2 mataqaana megawatt inaan hirgelino labada bilood oo soo socda hadaba waxa weeyaan carqaladihii lagu hor yimid ee laysan learning-ka haddaan dib ugu noqdo waqtiyada aan soo iibsanay marwaxadaha amniinka waxa weeye waa bahla waaweyn oo aan soo iibsanay anaga iyo Heko iyo Ebkaba oo 450 kilowatt oo bahalahaas aad waaweyn waxa naga qabsaday transportation koogii dhibaato fara badan oo aad ay naga qabsatay sababtoo ah waxa weeyaan blades ko kale waxay noqdeen bahla waaweyn oo aan containers qaadi karin oo ay dhacday in markaa aan baalaha keeno Djibouti-na ay noqoto in si loogu soo gudbinayay ay noqoto wax adag oo markab imanaya Djibouti oo imanaya mataqaana berbera aan weyni taas ay nagu qaadatay bilow fara badan in soo gudbino oo doon gaara u soo kareeno oo aanu keeno sida aan berbera ku keeno oo nacam si gaara loo soo qaado iyagoo khaas carqalada fara badan iyo dhib badan baa nagala kulantay sida aynu u soo gudbin lahayn transportation koogi oo toos u keenin lahayn Somaliland ilaa iyo Boorama iyo meelaha kale oo Burco iyo Hekaba ay ku jiraan waxa kale oo carqalada naga hor yimid waxa weeyaan technical expertise oo aan jirin waqtigaas maanta se aad ay wadanku uga duwan yahay waqtiyadii hore oo maanta technical expertise iyo wax badan ba ayaa jira oo ah fursadaha imika jira waxaanu hadda alxamdulillah ku guuleysanay company Portuguese oo hadda Telas Maatrado oo jecleen maanta inuu yimaado oo u suurtoob weeday inuu yimaado oo aan imika contract kala saxanay inuu windka iyo solarkaba isagu dhameystiro oo inay yimaadeen 2 jeer 3 jeer feasibility study ay sameeyeen haddana diyaar u ah ayna 2 months ka soo socda waxna ay bilaabeen in hawshaasi ay dhameystiraan marka aad iyo aad baan ugu taqaano iyadoo waqtigii salaadu ay tahay waqtigu inagu kooban yahay waxa weeyaan waa in loo gudbaa renewable energy-gu faa'iido badan buu inoo waa clean energy wadankani wuxuu leeyahay cadceed fara badan wuxuu leeyahay wind fara badan waxay weeyaan in shirkadu laga faa'iideysto si ay dadka customer-ka ama macaamiishu ay u helaan electricity jaban because dadku ma awoodi karaan qiimaha uu leeyahay haddii yahay shirkadaha leeyahay wax badan kama sameeyaan faa'iido badan si ay dadku u haystaan ma aha carqalada fara badan wax badan baa jira waxa kale oo carqaladaha jira kamida iyadoo transmission iyo distribution kiisu uu yahay loss fara badan ku jiro oo hadda shirkaduhu dhamaan ba gacanta ku hayno in si loo ka fargareyn lahaa losses ka imanaya oo laga dhigo standardkii caalamka loo baahna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh درسات مو ما تسني هاي نمشي مالنا waxaa ku xiga maxamuud axmed liibaan sidaan ii sheegay maxamuud koofiyo badan buu leeyahay marka tumaanta wato isagaa ka hadli kuleyo Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Salatu wassalam ala Rasulullah. First of all, I will say, firstly, in shortened way in Somali, then I will translate into English. Saskia, can you? Runtii anaga arintaan ka hadlayno waxa weeye sidee baa wind energy-ga ay uga nujixi kartaa ama ugu guuleysan kartaa Soomaaliya marka Soomaaliya la eego. Can I start in English or? Okay. Yeah. Somaliland. Good.
arrinta koowaad waxa weeye sidee bay dabayshu ugu guulaysan kartaa mashruuca dabayshu Soomaaliya iyo Somaliland run ahaantii waxaan ka mid ahaa dadkii mashruuca windka ugu horeeyay ee Somaliland keena aniga iyo saaxiibka Idris waxaanu qaadanay projects ilaa 4 oo aanu la sameynay World Bank oo Boorame iyo Baki Burco iyo Cerigabo arrintaas runtii waxay ahayd wax ku cusub Somaliland oo aan hore loo keenin waxa uu naga horeeyay mashruucii airportka laga fuliyay iyo 20 kilowatt laga fuliyay Abarsatek waxyaabihii noogu runtii technology oo dhulka ku cusbaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa waxay noqotay mashiinada way naqaanaa si loo shido si loo dayactiro si naftada looga bedelo si saliidda looga bedelo laakiin mara waxa dab dhalinaysa inaynu maqalno mooyaane weligeed ma aynu arag cid khabiiro ka soo horeysa ma jirto technician ka soo horeeya ma jiro yaani waxaanu la kulannay legdan iyo challenges fara badan arrintaasu waxayna dhaxal siisay inaanu dadaal badan gallo bal horta iska badaa inaad rakibtay in dhulkii la keeno oo marka hore waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo baahnaa waxa ka mid ahaa waxa loo yaqaano in la sameeyo cilmi baaris intaan marka hore dabayl la keenin in research la sameeyo cilmi baaris la sameeyo researchkaas markaa waxa ka mid ah in la helo wind speedkii directionka ama jihadii ka imanaysay meeshii lagu rakibayay waxyaabahaas oo dhan baa ka mid ah annagoo aan runtii baaris fara badan samaynin oo ku guuray in Soomaaliya dabayl badan baa jirta ayaan project galay taasu ma xuma oo waa loo geeyay in Soomaaliya dabayl jirto iyo Somalilandba laakiin caqabadaha naga horiyay waxa ka mid ahaa iyadana size-ka mashiinka la keenayo wind turbine-ka oo aanu bilowgii ka bilownay mid medium size oo ilaa 450 kilowatt dhalin kara logistics-kii lagu keenayay dalka waxyaabaha dhibta badan soo mariyay saaxiibka Idris baa ka hadlay waxaanu ka soo iibinay Europe waxyaabaha naga horiyay waxay noqotay inaanu markabna u soo kireyno qaybihii containerada galayay qaybna aanu markab roor ah oo aan container qaadi karin aanu ku keeno Djibouti waxaanu u qaatay ilaa 6 bilood qalabka inaanu ku keeno runtii waxay ka mid tahay waxyaabaha marka hore loo baahan yahay in study-ga laga sameeyo waxyaabaha kale runtii muhiimka waxa ka mid ah in la doorto mashiinka saxa ah ee loo baahan yahay in la rakibo ee la rakibi karo waxa jirtay hadda dhowr crane baa ku soo kordhay wadanka laakiin waqtiga Somaliland oo dhan hal crane baa joogo 50 tan waxa loo yaqaanay yellow crane shirkad kaliya ah laakiin ma sha Allah hadda way soo bateen 140 tan baa yimi waxa yimi 90 tan 70 tan waxyaabo badan baa yimi waxa kale oo runtii aan u arkaa inay ku guulaysan karto markii study-ga la sameeyo in dabayshu ma aha tamar joogta oo sida mashiinka dieselka dhalinaya mar walba dabkiisu joogo laakiin waxay samaysaa mar hoos bay u dhacdaa mar kor bay u kacdaa waxa jira bilaan dabayshu aanay badnayn bilaa ay badan yihiin dabayshu sida mashiinka oo kale ma aha ama solarka oo kale marka fluctuation-ka ayay samaysaa sidaa awgeed waxa loo baahan yahay haddii la rabo inay guulaysato wind energy-gu in la isticmaalo hybrid system ama tamarta isku sidkan sidii engineer Mire magaca ugu bixiyay sidkanaanta geelun baa loo yaqaanay tamartana waa la isku sidki karaa in mashiinkii iyo dabayshii ama mashiinkii iyo solarkii la isku sidko oo marka dabayshu hoos u dhacdo uu markaa mashiinkii buuxiyo oo markaa control system uu jiro smart oo dabayshii ama solarkii iyo mashiinkii isku wadi kara arrintaas waxyaabaha aan isleeyahay waa laga guulaysan karaa su'aasha kale la weydiiyay waxay ahayd maxaa laga baran karaa mashaariicdii aad qaadateen ama projects-ka hadda jira waxyaabaha laga baran karo waxa ka mid ah
marka hore in daraasad buuxda la sameeyo oo aanu isleeyahay waa meelaha aanu ka sameynay shortage-ka ama aanu ka gaabinay waxaa ka mid ah in mashiin ku habboon la keeno oo rakibmi kara waxaa ka mid ah in qiimaha mashruuca cost effectiveness la eego haddii aad mashruuc magaalo yar aad geliso lacag badan oo 30 sannadood aanay ka soo noqonayn ma aad samaynin marka runtii waxaasoo English laga rabaa ma ku celiyaa iyo waa la galay Can I do it in English? Okay. Okay, fine. Why? And then Because of the time is running, I have to switch on to English. Saskia, can you? We have been asked to present how can wind energy be successful in Somalia, in Somali context, and benefit the entire population. I see the wind energy is abundant and available in Somalia and Somaliland. But the thing, before we utilize it, we have to do some points, which is very important, before bringing wind into Somalia or Somaliland. The first point I think is very important is a research and feasibility study to be done in the following areas. The right location for the wind turbine to be installed. You know, the location is very important. The experts know how to find the right place because of the level of the earth and the sea level and all that. These are all factors. And the other thing is, okay, just carry on, the wind speed and wind direction. When we were getting the projects that we have been doing in Burao and Erigavo and Borama, in fact, we didn't take good research about the wind speed and direction. We have only just taken for granted that wind is very abundant in Somalia and Somaliland. And that was needed, in fact. Yet the wind is here, but it's not 100% available. As we know, wind sometimes, some of the months, the wind is slowing down. Some of the months, like the summertime in Somaliland, is very high. So it fluctuates like this. So we didn't make the right research that is needed. Also, installation, operation, and maintenance knowledge. One of the obstacles that we had when we brought those machines was the installation. I think quite all the IBBs knows. Few years back, there were only one crane in Somaliland, 50-ton crane. It used to call the yellow crane. That was the only available crane, which is owned by one of the companies in Somaliland. So if you bring 450 kilowatt wind turbine, you need at least 3 cranes, each minimum 90 ton. So if you see what you have and what you're gonna install is absolutely, there's a big gap. Luckily, recently, the IBBs, they brought a number of bigger cranes, including 70, 90, and 140-ton cranes, which is now it's possible to install like the machine is 400 and 300 kilowatts. So that was one of the obstacles we had. Also, choosing the right wind turbine that is possible to install. That's what I'm talking about. Before you bring it, you have to choose the suitable machine for Somaliland, for Somalia, subject to the availability of the technology you have and the tools, like the crane, like the machinery you have, what kind of tower you are using. As one of the also things to be thought. Also, I think it will be, the wind will be in the Somali country will be successful if we use hybrid system with the gensets or the solar, or with the solar. As you know, the wind sometimes goes up and down, fluctuates. According to the months, calendar of the year, some months the wind is very high in Somaliland, in Somalia, like the summertime. Some months it's almost stagnant. You don't get any wind. And you see wind turbines, they are not operating. So the hybrid system will be the only system
that makes wind successful. So when the wind goes down, the genset will go up and it will fill the demand of the load. maxamed aad buu mahadsan yahay. Okay, I think it's okay. Can I just carry on a few minutes? No, we need to wrap. Thank you very much. Okay, I want to thank, we apologize to cut short. Obviously, we're trying to respect the times. So thank you all the panelists. I've been to the Beko Generation site in Hamarwene actually about a week ago. It's very impressive, big site. I've seen many of the other sites as well. This is a very good thing, very exciting to have them here talking about their challenges and opportunities. So thank you all very much. I think most of you have trade booths downstairs. So each of you could come by, talk with them more.